telefishin qarka Somaliland ayaa warbixin idinka diyaariyay halista qarsoon ee wararka been abuurka ay ku leeyihiin bulshada. Yaxay Nairobi ayaa warbixintani noo diyaariyay. wararka qaldan ama waxa loo yaqaan fake news waa cudur si qarsoodi ah u faafa balse leh saameyn baaxad loo dhaawac weyn ku reebta bulsho kasta. macluumaad khaldan oo baaha waxa uu sababi karaa burbur ku yimaada kalsoonida iyo midnimada bulshada iyo weliba xasiloonida. marka dadku ay helaan warar aan xaqiiqo ku dhisnayn waxa la soo gudboonaata cabsi iyo walbahaar waxaana si xawliya u faafa wararkaasi. tusaale ahaan warar been abuur oo sheegaya in cudur faafayo waxa uu sababi karaa falcelin degdega sida dadka guryahooda ka soo bixi waayay isla mar ahaantaasina in badan ku nagaada goobahooda isku socodka dadka oo xanimna iyo waxyaalo kale oo tira badan. wararka salka ku haya arrimahaasi ee sida khaldan loo adeegsado waxay hurin karaan nacayb iyo kala shaki waxaana dadka walaalaha ka dhigi karaan cadow iyagoo abuuri kara kala fogaansho keeni kara kacsanaan iyo rabshado. wararka been abuurka waxay dhaawacaan sumcadda warbaahinta marka ay bulshadu dareenteen wararka ay helayaan yihiin been abuur waxay lumisaa kalsoonida. taasina waxaad keenaysaa in la helo war sugan marka ay runtu dhab ahaantii loo baahan yahay. dhibaatooyinka ay wararka khaldan bulshada dhexdeeda u geystaan waa kuwa aan marnaba yareen. qofka hal war been ah laga faafiyo waxa uu lumin karaa sumcadiisa taasi oo dhaawac weyn u geysan karta. tan waxay keeni kartaa burbur iyo weliba muruga shakhsiyadeed. saameynta siyaasadda ee xiliyadan wararka been abuurka ay ku yeelan karaa xiliyada doorashooyinka wararka qaldan ayaa marin habaabin kara codbixiyaasha dhaawicina kara murashaxiinta ama sacar qalaydan kara habsami socodka nidaamka dimuqraadiyadda. muwaad waxaa lagaaga baahan yahay amase kula gudboon markaad rabto inaad ogaato warka runta iyo kan qaldan inaad kala garato warka sugan iyo warka beenta. ha faafin war aan hubin xitaa haddii uu xiise leeyahay raadi ila lagu kalsoonaan karo. ka qayb qaada wacyigelinta bulshada. wararka khaldan waa hub aan rasaas lahayn balse dumin kara nabadda kalsoonida iyo wada noolaanshaha bulshada. wacyigelinta iyo feejignaanta iyo mas-uuliyadda wadajirka ayaa ah daawada tan ugu fiican ee lagu cirib tiri karo wararka qaldan. noqon run ilaaliyaha noqon ka qayb qaata dhibaatooyinka bulshada. saxafiyiinta iyo bogoga wararku waa inay noqdaan kuwo daacad oo hubiyo xogta ka hor inta aanay faafinayn bulshada la wadaagin. dadka iyo bulshadeennana waa inay noqdaan kuwa u xil saaran amniga guud iyo macluumaadkana waa inay la xisaabtamaan kuwa ku xadgudba xaqa warka runta. qof kasta waa inuu naftiisa ku tababaraayo inuu su'aal geliyo war kasta uu arko sida uu noqdo qayb ka mid ah xalka ee aanu noqon qayb ka mid ah dhibaatada. wararka qaldani waa curur degdega balse aan la dareemin waxaana uu dilaa kalsoonida dhaawaca bulshada waxaana uu kala qaybiyaa ummaday tahay inay isku tuubnaato. laakiin wacyigelin garasho iyo iskaashi waa daawada ugu fiican ee lagaga gudbi karo. noqo qof aan baahin wararka aan runta ku salaysnayn iyo xaqiiqada. ha noqon qof faafiya warar aan hubin. noqon run ilaaliyo runta. qofka waa ay dhistaa bulshadana waa ay dhisi kartaa. noqo qof door weyn ka qaata difaaca runta iyo cadaaladda dadkiisa iyo dalkiisa si aynu noqono ummad isku duuban. yaxye Nairobi, telefishinka qaranka Somaliland, Hargeysa.